هلو من مقلس صادقنا يراهdo anoo soo koobaya lacagta saadka la yiraahdo sadaqad ma bixinaysid wax alle haba yaraatee waxaad kaashlihii agoonta yar quudinayay ee masaakiinta quudinayay ee family-ga quudinayay ee 20,000 shilin ka helay markaad ka sarifato waxa la leeyahay hebelow lacag bar soo diray balsaad igu soo dir muxuu macaashaya kii daarada fadhiyay dadka masaakiinta u shaqeynaya masaakiinta wax siinayay ka maxay u eegayeen ragga cumaamada intay duubteen marna xaasaska dadka u hadlaya shicibka marna lacagta ka hadlay waxa shaqadooda ahayn bay ka hadlayaan iyagu odayaashan waxa sheegaya maxaan ku raada magac bay leeyihiin magacoodi waan iloobo odayaasha koofiyada waa wiil cumaamada dhinaca saarta maxaa boqorro adoo ana haw odayaasha mas'uuliyiinta familiyada ka ah iyo xaafadaha iyo ana haw anu magacoodi waan iloobay ga raali ahaadaan odayaashaas mas'uul waxa kay wixii rabshada dhaca wixii islaaya family dhibaato haday timaado waxa si mas'uul ka iyaga shaqadooda ma aha businesska dawladda ee u dhaxeeya shicibka horta balin yar dhagayso xoga careerna way ku jirtay saadka lacagta saadka anagoo joogna Yurub waxa leenahay laga joojiyo dalka sababtoo ay masaakiinta la qatay anka ka soo qaad anigoo inta wada ki tagay lacag yar gacanta ku haysta waxa iga soo baxay qof bari garanaya ama qof masaakiin oo biil yar baahan ama qof wax u baahan tan hayaan siinaya laakiin waxa ay saadka igu jirtaa kama sarif karo mana ku soo dir karo ma garanayo muxuu garanaya ninka baadiye ka yimid ama maskiinka meel maray masaad buu garanaya sadaqadii bay naga joojiyeen abaarta saadka noo keenay masaakiinta wax la siinayay rusqi ka gooyay lacag tareynta la soo sarifto ku dabada joogaanay boqolka ka macaasheenka dabada joogana aad u dhiibaysay maskiinka baska hoos taagana siinayay ayaa saadkii naga cunay waxa weeyaan sharaab hadaad ibsato waa saad numberka walaal qoran noogu soo dir khaatiyam anigu marka hore waxaan doonayaa ka hadli ciidan u sheegan garan waayay fahmado yaana raaciye meena oran masaakiinta dadka wax loo geynay caruurta rad cuna qabatayn iyo waxa ku dhacay mas'uuliyadda bariiska loogu tarayto maxay dawladda Soomaaliland uga fikir weyday walba ma maqlaysaa si fiican baan ku maqlay walaal xalay ana nido u raaciye dadka masaakiin caruurta yar yareed cuna qabatayn caruurta yar yar ma dadka waaweyn ba leeyahay saliid iyo bariis iyo daqiiq which one ba isku cuni karaa ana yar yar shaahmado caruurta hadii xitaa aan sonkorba loogu daran biyo bayleynta la kariyo caleen yar lagu daro ana nido loogu qasay cadayaan aad baad u maasantay xalay ilaan hooyaan ahay intaan iga gaarsiiyay xagga u sii gudbi dadka horena waan sheegay waxa ku tiraadeen odayaashan koofiyada duubana koofiyadiina ku eekaadiyo waxa leedin dirtay dadka wala joojinaya masaakiinta ba qaday wata xalay ma ismaqlaa madaxweynaha salaan kaliya laabay iga gaarsiiyay xalay ma ismaqli karnaa wax yar ma hogaamiye dhaqameedyada sheegaysaa in hogaamiye dhaqameed dawladda kalbiya 30 sano ka maqnaa ila yaabinay hogaamiye dhaqameedku soo ma ogid inuu kaalin lixaad la kaga jiro horumarka aanu diidin nabadgelyada uma diidin asagu sharaftiisu waxa weeyaan sharaf aan qusayn lacagtiyo dawladda ma qosayso sababta ay tahay waxaan u qusayn ma ku sheegay wadan Yurubaan jooga wadan inka waxaan ka maqan tarmaro ma ila socotaa si fiican ma kula socdaa 30 sano ayaan wadanka kob iyo 80 kiiba wadanka ka tagay in kan xiiseeyaa ayaan ku noqnoqdaa waxaan uga tagay waxa ka dhex sheegi doona Hargeysa markaan imaado sababta ay tahay waxaan u sheegay madax dhaqameedku waxa iyagu shaqo ku leeyihiin wixii eedaabta ka baxsan wixii maxaan ku dhahdaa dhibaato loo geysto wixii hadii wada family burburka dagaal haduu wadanka ka dhex waxa si shaqo ku leeyihiin laakiin masaakiinta baa qatay hadaan iyagu la soconin wala yaqra wala yaktub qarba hoos raadayay xalay ma dadka kalena ka ogaadaan in masaakiinta qadusaadkani shilinkii kaashi gacanta lagu qaadanay sadaqada laga bixiyo abaartaasi noo keentay xalay ma siina dadkii kalena ma u ogolaanaysaa inay hadlaan absolutely aad baan ku salaamay laakiin adeeradayda koofiyada leh saasan ugu sheegay
salaamaya marna ha soo hadlina marna dawladda wax ma qabanina oranina salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Xaliima ayaa kamid ahayd shacabweynaha ka qayb qaatay bal wadankiina aan ka qabana dadka qaar hallo mana maqlaysaa adiguna magacaaga goobtaad ku sugan tahay uu kaa go-ay baan u malaynayaa qof baan ka qabanaynaa isaguna kale oo wadamada Yurub jooga hallo mana maqlaysaa adigu hallo salaam calaykum wa Faaduma Cali Faaduma Cali aad baan ku soo dhaweynayaa telefishinka qaranka ku soo dhawo Faaduma xagee joogtaa walaal waxaan joogaa Holland baan joogaa dalmaro waan ku salaamayaa aad baan kaaga qaaday aniguna ku soo dhawow telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland walaal waan dhawahay waxaan halkan ka hambaliyeynayaa dawladda ayaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa go'aankii ay soo saareen isaadka ku joojiyeen waayo oo adiga durbaba arkaya siduu isu bedelay sarifkii ee dadkii durbaba sixir bararkii uga yaraaday waa run marka anigu hadalka badin maayo cidna aflagaadayn maayo horta dadkeena iyo dalkeena iyo dawladeena iyo wasiiradeennaba waan salaamayaa waa dhab waxaan kale oo aan leeyahay dadka nin waliba ra'yigiisu dhiibanayaaye meesha hala isugu taga wanaagsan oo dhanka wanaagsan mar walba ha laga joogsado waxbaad moodaa inaad yar gocanayso Faadumo waxbaad moodaa inaad markaad leedahay meesha wanaagsan ha laga joogsado kullayba qof waliba wuxuu jecel yahay horumarka wadanka ma u malaynayo qof maanta ama ha ahaado ciduu doonaba ahaadee doonaya inuu wadanka horumarkiisu uu hoos u dhaco yani ma waad yar qawadsantay miya qaar ba dad baad diidan tahay walaal waxaan qawadsanahay dadkeenu waxa wanaagsan cadow badan baynu leenahay inta la isu tago oo miidiyaha la isu soo taagin la wada hadlo ayaa fiican insha Allah waa run waxaan jecelahay cadow badan baynu leenahay in miidiyaha laga joojiyo dawladda wixii lagu mucaaridayo inta loo tago xafiiska loogu tago la mucaarido laakiin aan meelahan waxa la isu soo taagin ayaan anigu jecelahay Mareykanku meediyadii waa iska xidhay wadankii dimuqraadiyadda adduunka ugu weynaa ayaa meediyadii khatiyaan ka taagan oo waaba iska xidheen ba maalin dhow waxba laga yaabaa journalistiyaasha in albaabada u laabaan walaal waxa loogu laabayaa wixii wanaagsanaa dalka loo qabanayay haddii la mucaarido oo marka hawli jirtana la mucaarido dawladda markay wax wanaagsan soo saartaan la mucaarido xagee loo socdaa waa runtii waa fikir aad wanaagsan aad baan ku salaamayaa Faaduma aad baan idin hambalyeynaa adigana gaar ahaan baan ku hambalyeynayaa madaxweynaha iyo dawladda iyo reer Somaliland oo dhanna Allah barakeeyo cadawgeena caamiyeen dadkeena ilaahay xaq iyo iimaanka ha garansiiyo waan ku soo salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal baldadweynaha gudaha wadankii joogana aan ka qabanno hallo mana maqlaysaa adiguna hallo qofkaas uu ka go'ay daawadayaal barnaamijkeenan ayaa si habsamiya u socda isagoo shacabweynaheena aan ka qayb gelinayna inay bal ra'yigooda iyo fikirkooda ka dhiibtaan shilinka Somaliland laftigiisa maan maqal cid hadal ay soo hala qaato hana lagu dhaqmo hallo mana maqlaysaa adigu magacaaga goobtaad ku sugan tahay magacayga waxa weeyaan Firaan Maxamed aad baan ku salaamayaa xageed ka soo hadlaysaa hallo uu ka go'ay aad baan uga xumahay bal mar kale nagu soo celi hallo mana maqlaysaa assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaaga goobtaad ku sugan tahay walaal magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdillaahi Qombor waxaan ku suganahay magaalada Togwajaale Maxamed Cabdillaahi Qombor oo jooga magaalada Togwajaale ee xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Ethiopia aad baan ku salaamay Maxamed may maqlaysaa baan kaaga qaaday walaal si fiican ma ku maqlaya Maxamed ku soo dhaw telefishinka qaranka kullayba barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan shilinka Somaliland sidii loo kobcin lahaa in la qaato iyo kullayba arinta sicir bararkii dawladdu ay xogaa ay awoodeedii dawladnimo isticmaashay isla markiina ay markiiba hirgashay awoodii dawladnimo adiguna fikirkaagu muxuu yahay waxaan marka hore halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo tallaabada geesinimadana uu qaaday waa run waa ku maqlayaa Maxamed waa arrin guul ah la isticmaalo oo shirkadaha Telesom iyo Dahabshiilba lagu amro in lacagta dalku shaqayso aad baan u soo dhaweynaynaa waananu taageersanahay markaas sidee baa looga dareemayaa Wajaale iyo xuduudda u dhaxaysa Ethiopia iyo Somaliland si fiican
baa looga dareemayaa aad iyo aadna waa loo taageersan yahay dhaweynaysaa runtii aad baan maxamed ku salaamaya maxaad kusoo gabagabaynaysaa ama tala iyo tusaale ah qurba joogana aad u diraysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa walaal nimanka odayaasha ee madax dhaqameedada reer Somaliland ee aan danta dalka iyo dadka midna aan ka hadlayna maamulaha dhaadheer qaatay inaan noqonin rag weji ku macaasho oo shirkaduhu ka faa'iidaystaan balse ay noqdaan dad dalka iyo dadkaba u naxaya hogaamiye dhaqameedkii weeyaan markaa kuwaad fariinta u diraysaa hogaamiye dhaqameedada waxaan leenahay war bulshadiina la mid noqda baan leenahay oo dadkiina u naxa oo kuwii dadka u doodi lahaa ayaatiin aad baad u mahadsantahay maxamed aad baan ku salaamayaa waa fikir iyo tale aad u wanaagsan caways wanaagsan baan ku leeyahay asxaabta caways baa wanaagsan baan ku leeyahay qof kale waa ka go'ay qofka isaga ana ma sha Allah barnaamijkeena si habsamiyo qurux badan buu noogu socdaa calanka Soomaaliland aynu yar daawano isagana inuu muuqdo magaciisa alla kor ha u qaadee hallo adiguna ma maqlaysaa hello magacaaga iyo goobtaad walaal ku sugan tahay magacayga waxaa la dhahaa Faaduma Xaashi Suudan Faaduma Xaashi halkee baad joogtaa walaal Suudan baan joogaa Faaduma ku soo dhaw telefishinka qaranka adiguna muxuu yahay ra'yigaaga iyo fikirkaagu TV-ga maana ka hadlayeen adeer Faaduma aniga miyaan idila hadlayn soo tan aynu ismaqlayno ha iska dhageysan TV-ga maadaama aad Yurub joogto waa inaad ilbaxnimo muujisaa okay waa si wanaagsan ilbaxnimo dheeraada tii TV-ga iska dhageysato ismaqli mayno marka telefoonkan ka wada socono waa tahay ma maqlaysaa Faadumo magacaaga waad ii sheegtay walaal muxuu yahay ra'yigaagu ra'yigaygu waxa weeyaan yay dahabka la leeyahay waxba ay kiciyeen waxay kiciyeen iyagu wax kiciyay aye aad baan uga xumahay inantaasi iyadoo hadalkii wada ayuu ka go'ay hallo adiguna ma maqlaysaa maqlayaa magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay Cabdi Axmed walaal Cabdi Axmed oo jooga waxaan joogaa Holland baan ka hadlayaa Cabdi ku soo dhaw telefishinka qaranka adiguna muxuu yahay ra'yigaaga iyo fikirkaagu waa ra'yigayga iyo fikirkaygu horta dee walaal waan salaamayaa adiga iyo garwaanada telefishinka qaranka iyo madaxweynaha Somaliland aad baan kaaga qaadnay aad iyo aad anaguna dhamaantayo marka horta walaal boogti marka doolarka waan qof waliba wadankiisa uu jecel yahay waanu dee danaynayaa markay laanta qiimo yeelato moog waa dhab weeyaan laakiin haddana wax walba waxa hormarsan marka imka taahid 24 saacadood ama 48 saacadood waxa lagu hirgeliyay ma noqoto laakiin muddo goorta la fiiyaa waa dhab koodan loo bedelo ma garanayso waa dhab uu hirgalo shacabkuna uu la barto dee shirkaduhu ula qabsada ma garan waxaad leedahay marka waqti anigu taan leeyahay walaal isugu walaal laba qof baa hadda ku wada jira inana wuxuu ka soo hadlayaa baan u malaynayaa Ingiriiska magacaaga inanka Ingiriiska noo sheeg Maxamed Faarax baan la yiraahdaa assalaamu alaykum Maxamed Faarax isug inanka kale Holland ka soo hadlaya baan u malaynayaa ee ku jira khadka Maxamed baad adna ahayd soo maaha anigu Maxamed Faarax Saciid baan la yiraahdaa Maxamed Faarax Khandad baan la yiraahdaa Maxamed isug hadaba London waxaan u sii deynaynaa Holland baan hadda u ogolaanaynaa laba khad oo telefoon ayaa markii telefishinka qaranka soo wada galay labadiinana waan idin siinayaa marka Maxamed Ingiriiska isug inanka kale haynoo dhameeyay halka ka soco walaal ma garata Cabdi Axmed Cabdilaahi wari Holland baan ka hadlayaa Cabdiha oo Holland jooga marka hadda tusaan walaal qadka waad ku jiraysaa imika waa labadiinaba waa la idin maqlayaa waxa waa teknolojiya casri ah oo telefishinka qaranku isticmaalo laba qof horta dhibaatadu waxay ka taagan tahay maaha horta lacagta laantana isticmaalayso Somio idaabku maaha dhibaatadu waxay ka taagan tahay tujaartan raashinka soo dejinayo kaydsanaya raashinkii kaydinaya ila sugaya markuu sicirku kor u kaco markuu kor u kaco doonaya inay soo suuqa soo geliyaan ay ka faa'iidaan wada dhibaatada ugu weyn waa taas anigu waan isleeyahay xagga ra'yigayga moogta Cabdi iyo rasug hadaba Maxamed baynu siinaynaa Maxamed adiguna Cabdi waxa uu Holland ka soo hadlaya uu yiri waa ganacsatadu inay dadkooda ay u naxariistaan halkaas ayaana dhibaatada ay ka taagan tahay adiguna bal kullayba fikir kalena waad qabtaa in horta ra'yigaagu muxuu yahay barnaamijkan aad caaw daawanayno Maxamed assalaamu alaykum markore waa salaamantii wariyaasha iyo
ورياش غرق كيو دمانتين بوا سلامتين مقع إسلام كيكون سلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا واكو أدبان كو سلاني خدك تلفون كان كوضع سعنه والله وحوي وانو بدن هاي العقب بين سميسني سومالي لان بين نهاي قرن بين نهاي قرن شراء ومحان كودا هذا يجوز اعتراف كرو بحنين بين نهاي صح الحمد لله ميل وناكسن بين بيني العكسيني أيا سعون ويدي ووحي النقطة وح كبجيني بسات يدعب وحلا يا حكمان خدك تلفونك محمد هوس سجدك تيفيجا قرنك تيفيجا كصدرك ما دام وعدك بقى اسكت بدع عاية مركا حوجا واحد مدة وان حربة يعني سيدي استعمال نقولين ما إسلام عي إنك ما مدنا ما والله كيس الله بدو يسكت عراري مع يوكير يدتكير محمد ما أرنك وكرر اللي قلنا إن إسلامها سوري بوليس بين بحنا إنه واحد من هيدا إنجليز هو بحول والله go ahead محمد marka waxa weeye nimayahow lacag baynu samaysanay Soomaaliland baynu nahay lacagtii aynu samaysanay hadayna jeebka ku qaadanayna saadka iyo daabku ina xukumo iyo lacag dollar oo ayna lahayn waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo aafa oo ina qabsatay lacagteenu horumar weeday gobolada iyo maxaan ku yiraahday degmooyinkana ay qaar gaar weeday marka sida darteed dhawaaqa walgu dhawaaqay ee wasiiradii iyo dawladii oo dhan iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka ay fadhiisteen aad iyo aad baanu haddaanu nahay ugu hambalyeynayna aad iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa waa wax inoo dana waa wax horumara iyo sarifka la xakameeyey ee 700 lagu xakameeyey dib lagu celiyay intuba waa inoo wanaag iyadoo abaarina haysto iyadoo afina haysto in dhibaato kale leena ku furo uma baahnin odayaashana annaga hadlaynaaba odayaal baa dad baa odayaasha eedeynaya waxa weeye dee weligeed ba oday xun iyo oday wanaagsan wuu jiray nin weliba maaragtay ninba kaskiibu kor tagaabaa la yidhi marka maxaan ku idhaahday yaan odayaashana la wada eedayne dee oday maxaan ku idhahday koofiyad baclaa iyo oday kaleba waa jiraa oo maxaan ku idhaahday sidaasa markaa برنامجك هو اللي يلي ما تسوي السلام يا سيدي إنسان يا سيدي أوصل جنبا سلام ينتينا كريتو كتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد وسلام أنت عبدي أديكم ما حد كسر جبين يسوي هولن شوجا ورت ده بدو ما تنتين لا أنت ولا العلم مدي أنا نول بين كفانا ويد العكس هو التنكيس وعدبويان ما شاء الله inuu ku faanaaweeyo uu faan walba ka dhigtaa dunida markuu u baxayo qaato dadka tusaale waa lacagtii wadankayga taa lama diidana laakiin mushkilada weyn waxa weeye iminka iyadoo mushkilad taagantay haddana tiraahid war mar labaad taa aan fuliyo waa sax laakiin waxa weeye bilaadanka iminka waxa jiray India waxay soo saareen qaadan bay soo saartay oranaysa 500 waa la joojiyay saddex bilood ama 4 bilood bay dadku u qabteen moogta وارد مدة سيستم كيف الله قفتي وحوي مركا دون سينا ولا حتى ما يصيروا وين سيستمك مدو لبا بالوضع ما بال أما أنتي أورانك سيد ويدي كوكو بكرت على بعضها في كوكو بكرت أيها في عن إنجا لو سمية مكتب مشترك لكن عبدي أنا تاكر دحق لو حد كود الدولة وحي هيد إنا يعني مركبة كسر رجين إن جوان دق مساس الله ده هاي يعني زي مركب بين السيستم كتر هذا بيش مركب وقت عين ترى لكن عبد الله كيسو موجود دولة الشقة ده إن أي تهاي إن الشعب كذا دقيقة ده هدي أي أركتو إن أي خطر نلوشوا ده أي كوتشر تاي جوان دق قاعدة الدولة دي ماذا أي كم تهاي فرصة ضمة ولا الوحوية دولة دي كورسيد ظهر يا لما السيستم كروش قيني وارون لكن waxay aragtay dawladda imika Soomaaliland ay jirtaa in shacabka ay ka mas'uulka ahayd ay khatar ay noloshooda ay ku sugan tahay marka cabdi aad baan ku salaameynaa waana go'aan dawladeed oo rasmi ah shacabkeeduna way ku raaceen marka waana kulliba muwaadin baa tahay fikir baad qabtaa kale laakiin dawladda iyada shaqadeedu waxay tahay in ay horta dawladnimada saddex shaqo ay dawladnimada laga rabaa in ay ummadda nabadgelyadooda iyo in xuduudahooda ay u ilaaliso in ay muwaadinka nabadgelyadiisa ay ilaaliso oo ay ka ilaaliso cadow oo dhan in ay dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa ay ilaaliso waana ku saxsantay in talaabooyin degdeg ah ay dawladdu qaadato runtiina waa nidaamka dawladnimada lagu yaqaano ee ay adduunku isku xukumo si kastaba haatee barnaamijkeenan ayaa si rahabsamaya u socda oo ay shacbi weynuuna leeyihiin naga qayb geliya qof baa le aniga bal aan ka qayb galo hallo mana maqlaysaa hallo calaykum assalaam waraxmatullaah magacaaga goobtaad ku sugan tahay
والله magacii goor wayta Faaduma ana ma garanaysaa uu iga go'ay Faaduma ku soo dhow telefishinka qaranka markii dhawto ka go'ay raalina ahaw ku dhawahay waxaad ka hadashay markii dhawto waxaad tiri saadku khalad muu sameyn baa tiri halka ka sii wad khalad iyo dahabtoona khalad ma sameeynin halka muurteeno ay sirtu ka qurintay waxa weeye jaadka ma garatay jaadka la cuno jaadka la cuno maxay hay'adda Itoobiya ka yimaada kaasadaadiyay dadkeeni oo dhalinyaradeeni baabisay ka dawladda maxay wuxuu ka qaban weyday inta yeeganaysa kaasa dollarka loo xambaariya oo dollarku halkaas uu ka kacay oo halkaas lacagteenu hoos uga dhacday lacagteenu maxay u qaadan waayeen iyagu waxa su'aalan ku weydiiyo bini aadan kasto adduunkan ku nool waxay iska leeyeen wax ay ku maararoobaan oo ay maskaxdooda ay marka shaqooyinka ay ka nasanayaan ay iska cunaan oo ay ku raaxaystaan Somalilander kuna jaadkaas wuxuu inoo noqday geed ay shirarka iyo marka la fadhiyo iyo waa shirarku wanaajiya kullayba waa balwad ay ummadii leedahay balwadina way iska dhib badan tahay marka haddii shacabka ay doonayaan jaadkii haddii la yiraahdo joojiyo xuduudihii ciidamada la dhigo dil baa imanaya balaayo dhan baa imanaysa qaar baa waxay soo gelinayaan waxa laga yaabaa marduufka jaadka ee halkii uu 100,000 oo shilin Somaliland uu ahaa inuu 1 milyan uu noqdo marka ma waxaad leedahay hal la joojiyo si marka ay inoogu badato dhirteeni baa ku baabaday reer biyigii baa bartay xoolaha celinayay ayaa bartay jaadka dhirteeni baa ku gubatay maanta dhirteena waynu manaafacaadsan lahayn bilowyahanka ka bixi jiray geed maxay hayday way magaali jirtay dhirteeni baa la siday bixil baa laga dhigay dabeedna waxay siisteen jaad marka waxa halka wax sirtu ka qurmaysa waa halka aad baad u mahadsan tahay Faadumo jaadka iyaduna halkaas ay marisay runtiina shacbi weynaha telefishinka qaranka inaga daawanaya dhamaantiinba waxaan idin xasuusinaynaa barnaamijkeenan ujeedadiisu waxay tahay inaan gudaha wadankeena ku ekaano oo aynu isla eegno maxaynu u baahanahay saadka maxay u aragtaa lacagta shilinka Somaliland in la qaato bal daba daawadayaal aan yara jaleeco warbixin in runtii aad u xiiso badan oo in suxufiyiinta TV-ga qaranku ay mar dhawtay soo gudbiyeen oo ku saabsan arrinka bal qofba isaguna wadanka boqortooyada Sacuudiga aan u maleynaya hallo ma maqlaysaa adiguna assalaamu alaykum magacaaga goobtaad ku sugan tahay maxamed waxaan joogaa imaaraadka Abu Dhabi baa joogtaa imaaraadka barnaamijkeena ma la socotaa wala socdaan maqlaya maxaad adiguna ra'yigaaga iyo fikirkaagu yahay sicir bararka iyo hawlaha dawladnimadu ay talaabooyinka ay qaado wallahi sicir bararka anigu waxaan oran lahaa dadka qurbaha ayaa sameeyay dawladda Somaliland waa inay ka qabato dadka qurbaha ka yimaada weliba ay ka yimaada Europe ama dalalka kale laga shaqaysto ee ku iibsanaya dollarka wax walbana qaali kaga dhigay dadka gudaha marka iyaguna qolay qurba joogad adiguna caawa halkaas aad u saartay anigu waxaan leeyahay aniga kamid ah qurba jooga waxa weeyaan dad qof walba wuxuu la yimaadaa dollar markaad magaalada la timaadid dollarka koobka shaaha ku cabtid $1 ama aad ku cabtid $50 ninkii dalka joogay kuma cabi karo waxaad mar dhawata tiri qolada Europe joogta ayaa arrinka ka mas'uul qolada Imaaraadku ma lacagta Somaliland bay isticmaalaan qolada Imaaraadku laftigooda waxa weeye waa qurba joogay kamid yihiin waa dad soo shaqaystay ka dhignaa marka sheekada qurba joog oo dhan inaynu la hadalno anigu waxaan sheegayaa dawladda ka mas'uula qurba jooga inay sicir u sameeyso dalka gudihiisa waxyaabaha la isticmaalo sida maqaayadaha cuntada xataa dhulka xataa lama iibsan karo waa tahay يعني إمك waxay maraysaa in guriga Hargeysa lagu iibsado $100,000 waana dawlad Somaliland oo wali aan la ictiraafin imika dalalka Mareykanka oo kale guri dhan ayaad ku iibsanaysaa oo khadamaadkii iyo wax walba la service-kii leh ayaad ku iibsanaysaa $100,000 Hargeysana $100,000 baa lagu iibsanayaa waa tahay marka sidee sicir bararkaas xaguu ka yimi mazaadku ka yimi mise dawladda daciifka ee aan qaban karin dalkii sicir u sameyn karin runtii horta waxa weeyaan waa talaabo shacabkii iyo ganacsatadii iyo dawladii iyo qurbajoogii waxaan oran lahaa waliba waxaan oran lahaa waxa weeyaan dawladdu waa inay u naxariisato dadka Somalilanderka ay degan dalka Somaliland ee aan shaqaysan ee aan business haysan in maanta la yiraahdo dollar meel walba ku cun oo ku cab waa inay dawladdu arrin aqliga gasho maaha aad baad u salaaman tahay aad baan ku salaamayaa barnaamijkeeni si habsamiya ayuu u socdaa
waxaan jecelahay qadar yar in aan balbo runtii warbixin ayaa mar dhowto soo gaadhay ka hadlaysa sida uu sicirku ahaa 2 maalmood ka hor iyo sida uu hadda uu yahay runtiina engineer Ugaas ayaa warbixintan inoo soo gudbiyay qiimaha maciishada ayaa halkan ku qoran qiimaha maciishada imika waxa halkan uu ku soo qoray Ugaas qiimaha maciishada oo hoos u dhacday kiishka bariiska ah shalay wuxuu ahaa 219,000 oo shilin Somaliland maanta wuxuu marayaa 178 ilaa 30 baa ka dhacay kiishka sonkorta ah shalay wuxuu ahaa 284,000 oo shilin Somaliland ah maanta wuxuu marayaa 230 buu isaguna hoos u dhacay kun kiishka daqiiqda ah shalay wuxuu ahaa 167,000 oo shilin Somaliland maanta wuxuu marayaa 136 ilaa 30 iyo kooba isagana ka dhacay macnaheedu markaa waxay tahay si habsamiya ayuu go'aanka dawladnimadu u shaqeeyay iyo go'aanka digreetada madaxweynuhu halo mana maqlaysaa adiguna magacaaga goobtaad ku sugan tahay magacaygu waa Cabdicasiis Muuse Cabdullaahi waxa ku suganay magaalada Germany wadanka Jarmalka Cabdicasiis muxuu yahay ra'yigaaga adiguna waa ku maqlay Cabdicasiis TV-ga anska horta marka hore waxaan aad ugu amaanayaa go'aanka geesinimada leh oo qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Maxamuud Aadan Axmed Silaayo صح si fiican baan ugu garab taagnay haddaanu nahay ummadda reer Somaliland halkan mar dhaweyto waxa ka hadlay inaan ka soo hadlay imaaraadka waxa uu yiri qolada qurbuhu waa inay isticmaalaan lacagta Somaliland markay wadankii ay tagaan iyagana ka masuula in ay wax walba dollar ku iibsadaan maxaa markaa hota oran maayo dadka qurba joogi ka masuul weeyaan in lacagta qalaad ay wadanka soo galiyaan xawaaladaha iyo shirkadaha ayaa ka masuul ayaan oran lahaa oo ay tahay in dadka marka dadka qurba joogi ay soo galiyaan dollar wadankii ay iyaguna ugu sii celiyaan dadkii lacag wadanka leeyahay waayo wadanku wuxuu ku faanaa lacagtiisa wadan waa markuu lacagtiisa horumariyo marka sidaynu u leenahay wadankeena hal ictiraafo aynu u doonayno in wadankeena uu adduunka oo dhan wadan magac kale uu noqdo waa in lacagteena masar aan ugu garab taagnaana wallahi aad baad Cabdicasiis u mahadsan tahay in ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkadaha Somaliland waa shirkado aad u wanaagsan oo horumar aad u ballaaran wadanka ka sameeyay iyaga laftirkoodu daliil ma laha baan leeyahay laakiin waa in iyaga laftirkoodu ku garab taagnaadaan madaxweynahooga oo yani go'aanka geesinimada loo qaatay ay ummadda reer Somaliland wixii u dana inaynu wada raacno weeyaan maadaama aynu nahay ummad muwaadiniin oo wadanka ka soo jeeda aad baad u maasantay Cabdicasiis oo ka soo hadlay wadanka Jarmalka daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh wadanka gudihiisa Yurub iyo waxa aad moodaa Carabuhu inay barnaamijka la wareegeen halo adigu ma maqlaysaa السلام عليكم ورحمة الله magacaaga goobtaad ku sugan tahay waa ka go'ay waxa daawanaysan barnaamij aad u xiiso badan oo ugu talagalnay in aynu kaga hadalno arinta sicir bararka sidoo kale qaadashada lacagta dalka Somaliland ee shilin Somalilandka runtiina waxa kan mid tahay nidaamka dawladnimada dalku hadii aanu lacagtiisa isticmaalayn way ku adagtay inuu aqoonsi caalami oo marka adduunka uu weydiisan karo hadiiba lacagtaadii aad samaysatay iyo nidaamkaagii iyo currency-gaagi aanu wadankaagi aanu si rasmi aanu ka shaqeynayn waxa adkaan karta marka in lagu yiraahdo wadankaaga runtii maba ahaba wadan aad lacagtiisu ay ka socotaba macnaheedu marka waxa uu yahay arintu maaha saad moodeysaan waa arin gali karta dhinaca xataa ictiraafka Somaliland marka waa arin u baahan in ay shacab weynaheena aqoon-yahaneedenu si fiican looga doodo saameynta ay wadanka iyo horumarkiisa ay ku yeelan karta intaba halo mana maqlaysaa adiguna halo السلام عليكم si fiican عليكم السلام ورحمة الله magacaaga goobtaad ku sugan tahay magacaygu waa Khadar Cabdullaahi Maxamed Khadar oo jooga magaalada Hargeysa Khadar muxuu yahay ra'yigaaga iyo fikirkaaga adigana caawa dhan Yurub ay haysatay fikirkaygu waxa weeyaan in horta anigu aad baan u taageersanahay go'aankan ay soo saartay dawladdu waayo waxa weeyaan dadkii xalaan magaalooyinka qaar baa laga mudaharaaday marka xaaladdu haddaanay dawladdu xaaladda degdeg ah qaadan lahayn dadku waxa weeyaan sawda dhicilayda waxa weeyaan in waxa weeyaan
arrinkooda saa u kasii ballaadho ayaa dhici lahayd markaa 100% haddaan ahay dhalinyarada reer Somaliland ee ku sugan dalkii aad baan u taageersanahay inay go-aanka ay dowladdu qaadato aad baad u taageersantahay Khadar oo jooga magaalada Hargeysa ayaa go-aanka isaguna aad u soo dhaweeyay hallo mana maqlaysaa adiguna waan ku maqlayaa walaalo dalmar aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga goobtaad ku sugan tahay walaal xaasha la yiraahdaa xaasha oo joogta London baan joogaa barnaamijkan maxaa kaaga ifbaxay barnaamijkan waxa walaal iga ifbaxay runtii dad dan iyo dawlad dan iyo qoomiyad dan oo meel joogta oo xalal leh oo lacag leh oo ciidan leh oo shicib leh oo culamo leh oo caamo leh oo haddana tidhaahda waxayga ku isticmaali maayo wadankayga gudihiisii waa wax lala yaabo waa dhab wadanka lacagtiisu markay socon weydo ay xashiish noqoto xagee lagu wadaa waa dhab waa inay dadku fakaraan waa inay caqli yeeshaan waa inay caqliga soo celiyaan dollarkan ma lihin dal baa leh oo ku faana oo sanka dadka ku haya waa in qof waliba wixiisa uu isagu meel marsadaa cidina ku meel marin mayso haddaan adigu meel marsan waxaaga caawa $100 haddaad tiraahdo dukaankayga iga iibi ingiriiska maxaa kaaga iibi maya ard banka ka soo sarfiilay ma lacagtiisa uu dhulka dhigaya waa maya dee marka inagoo adduunyada laysuma joojiyo ninna nin uma joojiyo ninna nin ma eego laakiin kii isku joogsada ama kii isbaabi'iya ama kii dhulka isku fiiqa waa lagu sii fiiqaa waa dhab la waxaan u sheegayaa dadka inay caqliga uu shaqeeyo oo aan hungurigu shaqaynin waa dhab oo aan caqli xumadu aanay shaqaynin lama oran karo maanta dadku waa bilaa cilmi lama oran karo dadku waa bilaa caqli lama oran karo dadku aqoon ma laha waa la ilbaxay maanta ta Yurub taagla tela taala waa dhab oo in dadku caqliga isku sugaa oo iimaanka ay isku jeladaan runtii waa fikir aad iyo aad u wanaagsan qoladeena qurbaha inanba imaaraadka ka soo hadlay oo aad inoo garaacay qoladeena inankaasu isagu wuxuu ku fakeray dollar baa lala tegay dollar baa wax lagu iibsaday laakiin kamuu fakerin dollarku may ahayn inay inagu isticmaalo waxay ahayd inaynu sarrifano oo laankii isticmaalo wadankuna uu adkeeyo oo uu yiraahdo dollar gudaha laguma isticmaali karo waa dhab noo soo xareeya waan idin sarifayna isticmaala lacagta wadanka waa dhab waa inta meesha taala absolute aad baad u mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinaya caashay walaalaad baan ugu faraxsanahay caawa sidii igu soo garay in badan baan taageereeyay aad baad u wallahi yani deeply baan u cadhooday dareemi waxaan walaal uga cadhooday rag waaweyn oo aqoon leh oo odayaalo oo raggii maanta la doonaya inay dadka yaryar iyo dadka dhexe iyo dadka odayga ahaan waxba garanayna indha isku haysta raggii hagi lahaaba maanta inta halka isa soo taageen oo dawladda ku lacag qaataan oo ku mishahar qaataan oo cumaamad qaataan ay bud qaataan haddana leh sidaas saa dhici mayso inay yiraahdaan absolutely baaha waayo wadadkii dawladda la shilay oran horta maxaa jira intaani cidnaba barbar cararin shirkaduhu waynu u baahanay waa dadkeeni waa dalkeeni waa dad laakiin waa in la isu naxo oo la is eego waa runtii shirkadaha Somaliland shaqo abuur fara badan bay wadanka ka sameeyeen aad waa dadka dhulka ka qaaday weeyaan alla iskuma hayo inagama mudna laakiin haddana maxaa ka sii daraaday beedso kuwan dadkii cabaday ila albaabada baan xurayna waxba ma haysano waa run maxay markaa meel ka tarhan markaana ila waa dadkoodii inuu naxariistaan weeyaan waa dadkoodii waa shicibkoodii isagii la jawaankii keenaya waa inaanu ka macaashin intuu keeno oo wixiisa dur saarto iyaga ku wareejiyo iyaguna waxay doonayaan ay saartaan marmar Yurub oo kale waxaad aragtay laba jawaan oo bariis hadaad qaadato midka saddexaad waa bilaash mabda'aas oo ay wan free buu sameeyay supermarket kaasu wuxuu u sameeyaa waxanaha ka baxaan oo aad wax cusub keentid waa dhab lacagtaadina kaaga soo dadkuna ha yeeshaan ilaa waad aragtay marmar inay nagaba sicirku inagu kaco oo samada la isla qabto waa dhab weey haddana haddaan bay wan free laga dhigin waxa weeye dad dhan baa dabaqad dhaxad baaba ay soo hawada ka baxaysa alxamdulillah ilaahay khayrka hayna tuso aad baan ku salaamayaa okay walaal thank you aad baan ku salaamay caasho oo tirwaan cadhooday oo waan ka soo kacay hurdada markii aan arkay hawshu sida u socoto ayaa barnaamijkeenan kamid ahaa dadka caawa ka qayb qaatay runtii daawadayaashada qiimaha ee qaayaha leh barnaamijkeenan ayaa ahaa fikir isweydaarsi iyo in wax kala qaadasho
runtiina mid waxaad ogaataan hogaamiye dhaqameedyadeenu iyo ilaahay khayr ha siiye waa kuwii wadankan inoo dhisay wax badanna wadankan ka taray in loo caqli celiyana xaq baa loogu leeyahay oo muwaadin la fahantiisu shirkadaheenana runtii maalgelin aad u fara badan bay wadanka ku sameeyaan waa shaqo abuur badan bay sameeyaan iyagana in loo caqli celiyo oo marka la arkay in ay aad u doonayaan lacag in la yiraahdo jooga halkani waxa weeyaan waa ummadiini iyo dadkiini waxaan aydu lacagta aad ka raadinaysaan u naxariista si kastaba haatee daawadayaal barnaamij aad u xiiso badan ayaa guntiga gabagabadii aan caawa halkan waxay nooga ifbaxay in dadkoo dhan ay isku wada raacsan yihiin in horumarka wadanka laga wada shaqeeyo welibana lacagta Somaliland sidii loo qaadan lahaa falowgeeda la qabto barnaamijka ayaa halka inoogu soo gabagaboobay guntiga gabagabadii waa barnaamijkeena caanka ahaa ee Somaliland maanta oo runtii aan rajaynayo in aydun dadweynow aydun ku raaxaysateen isla markaana aydun caawa waxyaabo fara badan aad ku ogaateen waxaan idin leeyahay waa anigoo dalmar ah injineer Axmed Qorshe injineer Idris injineer Ugaas iyo asxaabta qiimaha leh caawa heeganka inoogu ah telefishinka qaranka magaalada Hargeysa iyo intii ka qayb qaadatay ee sida wanaagsan quruxda badan u soo hadashay aad baan idin salaamay wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.